بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. موضوع عاوة waxaynu kaga hadli doonaa raacidda dhammaan talooyinka ay soo jeediyaan dadka guuleystay iyo sida aad uga qaadan karto waxyaabaha ku anfacaya adigoo aan wax kasta kaga dayanayn. Waayaan jaamac nuux xoogaa dulqaada oo aad ku dhamaysato muuqaalkani waa waxaad si weyn uga faa'iideyso. Dhowr sano ka hor gabadh ganacsata ah oo lagu magacaabo Elizabeth Holmes ayaa sheegtay inay heshay hab ay ku ogaan karto xanuuno badan dawadooda iyadoo ka qaadaysa qofka dhibic dhiiga sidaasna ku ogaanaysa xanuunada. Si degdeg ah ayay shirkadeedii u heshay maalgelimo waaweyn waxayna gaadhay qiimaheedii suuqiga ahaa wax ka badan 10 bilyan oo dollar. dad badan ayaa gabadhan ku tilmaamay gabadhii bedeli lahayd dhaqaalayahanka weyn ee Steve Jobs iyaduna ma ay beenin hadalkaas ee waxayba bilowday inay u labisato sida Steve Jobs isla markaana ay xidhato isla nooca dharka uu caanka ku yahay ninkaasi. waxayna si joogto ah uga soo muuqan jirtay shirarka saxaafadeed iyo xafladaha si ay dhalinyarada u siiso talooyin ku saabsan khibradeeda ganacsiga. talooyinkeeda caanka ahna waxa ka mid ah talaa loola yaabi karo oo ah marka aad dejisato qorshe labaad waxaad ku xukuntay qorshahaagii hore inuu fashilmo. waa hadal qosol leh isla markaana ay ka muuqato jahli badan oo ku saabsan muhiimadda qorshaha labaad marka la joogo ganacsiga. sidaasoo ay tahay dad badan ayaa ka helay kuna qancay taladeeda maadaama ay kaliya lacag badan ka soo xiraysay suuqa. waxaadba moodaa isla marka uu qofku ganacsado noqdo ama abuuro shirkad guuleysatay inuu helay kayd xigmad ah oo si toos ah loo qaadanayo wax kasta oo uu yiraahdo iyadoo aan la eegayn saxnaanta hadalkiisa. heer waxayba gaadheen dadka qaar inay ka dhageystaan talooyin ku saabsan nolosha iyo guurka jilayaal iyo fanaaniin iyagaba ay qasan tahay noloshooda qoysku. sababtuna waa in dadkaasi qabaan in caanimadu ay ku filan tahay qofka si loo rumaysto hadalkiisa. arrinka la yaab kale ayaa ah in dhawaan shirkadii gabadha aynu ka soo sheekaynay ee Elizabeth Holmes ay kacday iyadiina lagu soo eedeeyay kiisas badan oo ah inay dhacday khasaarana gelisay dadkii maalgashaday shirkadeeda. waa wax iska cad inaanay dejisan qorshe labaad oo ay ku badbaado. marka aan si gaar ah loo eegin gabadhan oo qura si guud xitaa dadka aan cidna dhicin ee la yimi mashaariic iyo shirkado guuleystay ma aha in taladooda loo wada qaato si 100% ah ama xitaa in dib loo sameeyo wixii ay soo sameeyeen si buuxda. waayo tijaabo ama horumar kasta wuxuu leeyahay deegaan, waqti iyo xaalado ka duwan kuwa aad hadda ku jirto. haddii aad sideeda u samayso tijaabooyinka dadka guuleystayna micnaheedu ma aha inay kuu soo baxayso isla natiijadii ay iyagu heleen. haddii ay taasi macquul tahayna waxaynu heli lahayn malaayiin Bill Gates ah iyo kumanaan Jeff Bezos ah. waxaa jirta aragti lagu magacaabo success bias u janjeerka guusha. taasi micnaheedu waxa weeye in la qiimeeyo safarka guusha ee qofka iyadoo la eegayo xaaladda guusha oo qura oo aan la fiirinayn dhanka fashilka. inta badan sababaha la isaga indhatiro dhinaca fashilka iyo dhibaatada guusha loo soo maray waxa weeye inaan la aqoon ama aanay si fiican u cadayn. tusaale ahaan markaad maqasho Bill Gates iyo Mark Zuckerberg waxay ka tageen jaamacadoodii si ay u aasaasaan shirkadaha ay maanta leeyihiin waxay kula noqonaysaa go'aan aad u fiican. dabcan waa go'aan fiican laakiin waa go'aan marka naylooga sheekaynayo hal dhinac oo qura naylaga tusay. kaliya waxaad maqashay dad fara ku tiris ah oo ka tagay jaamacadoodii kadibna guuleystay laakiin ma ogid inay jiraan kumanaan sidaas sameeyay oo haddana fashilmay. sababta aanad u maqlinina waa inaanay cidina jeclayn inay ka sheekayso guuldarrada iyo dadka guuldaraystay. waxaa jiray dad badan oo kuwa guuleystay ka mid ah kuwaasoo marka ay talo bixinayaan tusaale ka dhigta safarkoodii iyaga u gaarka ahaa dadkana dareensiiya inay samayn karaan isla wixii iyagu ay sameeyeen. taasina gebi ahaanba waa mid aan sax ahayn sababtoo ah guusha ay gaadheen dadkaasi waxa keentay wax badan oo iyagu gaar la ahaayeen sida awoodda shakhsiga ah, deegaanka, fursadaha ay heleen, waxyaabahaas oo u suurtageliyay inay gaadhaan hadafyadooda. taas micnaheedu ma inaan la qaadanba wax kasta oo ay sheegaan dadka guuleystay? jawaabtu waa maya.
waxa jira waxyaabo laga qaadan karo dadka guulaystay laakiin waxay u baahan tahay xoogaa xigmad iyo ka fiirsasho ah waxaad ka qaadanayso iyo waxaad ka tegayso. laba talo ayaad u baahan tahay inaad raacdo marka aad rabto inaad dadkaas wax ka qaadato. talada koowaad, ka fogow inaad si buuxda u wada samayso waxyaabaha ay sameeyeen dadka guulaystay si ay u guulaystaan. waxaa jira waxyaabo gaar ah oo aad kaga dayan karto sida habka aad u dejisanayso hadafyadaada ama waxyaabo ku saabsan sida la isaga ilaaliyo caajiska loona qabto shaqada kuu taala iyo wixii la mid ah. laakiin macquul maaha inaad tidhaahdo Elon Musk wuxuu maamulaa dhowr shirkadood oo guulaystay, anna waan maamuli karaa, waxaanan kaga dayanayaa wax kasta oo uu sameeyey ama sameeyo. adigu ma tihid Elon Musk, isku mid ma tihiin awood ahaan iyo deegaan ahaanba, sidoo kalena diyaar uma tihid inaad hurto ama lumiso waxyaabaha uu lumiyey si uu guul u gaadho. tusaale ahaan waxyaabaha uu dayacay si uu u guulaysto waxaa ka mid ah qoyskiisii oo dhowr jeer ka burburay, sidoo kalena caafimaadkiisa oo halis galay markuu waqti yar oo aan ku filnayn seexday, isla markaana isticmaalay dawooyin ku keenay saameyn xun. sidoo kalena isaga ayaa qirtay in cadaadiska shaqada iyo daalka maskaxdu uu ku keenay inuu marar badan qaatay go'aano xunxun oo u keenay shirkadihiisa khasaarooyin waaweyn. sidaas darteed iska ilow inaad u raacdo habkii uu raacay si 100% ah. laakiin waxaad ka qaadan kartaa qaybo yaryar oo ku anfacaya, tusaale ahaan habfakarkiisa iyo sida uu xalliyo mashaakilka soo wajaha shirkadihiisa, sidoo kalena sida uu u qiimeeyo ganacsiga guulaysanaya iyo midka lagu fashilmayo. talada labaad waa inay jiraan waxaad ku qiimeynayso iyo meel aad u laabato oo kaa saacida inaad qiimayso waxyaabaha ku yimaada noloshaada. sinaba sax uma aha inaad qaadato hadalka qof kasta oo guulaystay maadaama uu kaliya guulaystay, xitaa hadday khilaafayaan aragtiyahaaga nolosha ama xitaa caqliga saliimka ah. muslim ahaan innaga waxa inoo ah marjac ama meel aynu wax ka qiimayno diinteenna suuban, kadibna cilmiga dunyawiga ah ee lagu ogaaday tijaabooyinka iyo baadhisaha. tusaale ahaan waxaa jira buugaag badan oo ka hadla guusha iyo habka loo guulaysto, laakiin soo gudbinaya talooyin aan fiicnayn akhlaaq ahaan, diin ahaanna noqonaya khiyaamo iyo istabamarin. sidaas darteed tallaabooyinka buugtaas ku xusan samayn maayo si kasta oo ay igu xaqiijin karaan guulo maadi ah maadaama ay khilaafsan yihiin diinta aan aaminsanahay. sidoo kale waxaynu wax ku qiimayn karnaa caqliga iyo cilmiga. haddii taladu ay si toosa kuula muuqato mid aan caqligu aqbali karin, iskaga tag. sida inaad aragto buug, muuqaal ama kooras ay ku qoran tahay sida lagu barto luqadda Ingiriisiga muddo bil ah. khaladaadka ay dadka qaar ku dhacaan mararkan oo kale waxa weeye inay tusaale iyo marjac aqooneed u soo qaataan tijaabooyin hal qof sameeyey kadibna ku guulaystay. talada markaa waxaa la aqbali karaa waa marka ay dadyow badani ku guulaystaan, laakiin tijaabo ay ku guulaysteen milyankiiba hal waa wax halisteeda leh, caqliga caafimaadka qabaana aanu ku dhiiran karin. gabagabadii waxaan rajaynayaa in labadaas talo ay idinka caawiyaan inaad shaandhaysaan hadallada iyo talooyinka dadyowga lagu tilmaamo inay guulaysteen. aad baa u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.